بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كما هو المعلوم sidaan u wadan aan ogsoonahay maanta waa maalintii ugu horeysay Ramadaan awal yawmin oo maalin jimco ay tahay waxaa jirtay masjidkeenaga oo xaafada High Point masjid sunna inaan bil kasta oo Ramadaan aan lahaan jirnay majaalis oo Ramadaan بعد العصر إلى بعد المغرب inaan muxaadarooyin aan sameyn jirnay oo ka hadli jirtay fadaaisha Ramadaanka iyo fadliga uu leeyahay tilaawada Qur'aan iyo ahkaam Ramadaan oo dhan aan ku sameyn jirnay iyo kitaabka kutub kale adkaarna waan akhrin jirnay laakiin qadar Allah ma shaa fa'ala xanuunkan iyo dibka hadda imaaday ay masaajidda oo dhan u cadilmeen oo adduunka oo dhan ka wada jirto marka waxaan jeclaysanay walaalaha qaarkood oo u khidmeeyaan dacwada u khidmeeyaan dacwadii wixii laga gaari karo in la qabto oo loo marsiiyo qanawaadka social media wixii la awoodi karo marka maalin kasta insha Allah biidin Ilaahi Kariim xadiis ama laba xadiisood ama dhowr aayadood yaan biidin Ilaahi Kariim ayaan ka qayb qaadan doonaa dhalinyaro kale oo walaalo kale oo ka qayb qaadan doonaan jazakumullahu khayr walaalayaal saad ogsoontihiin ilaahay baa mahad iskale awalan wa aakhiran alihi dad naga dhigay dad islaam oo ahlu iimaan naga dhigay ilaahayna wuxuu yiraahdaa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ni'mada ilaahay haddaan dabcan inaan koobno ma koobi karno wa akbaru ni'ma ilaahay oo nagu galladaysana waxa way waa ni'matul islaam ni'matul iimaan dadka islaamka bishan agtooda waxay ka leedahay miisa iyo qiimo weyn bay ka leedahay لأنه هو بشأ إلهي وأدرتي إنه كتاب كيس قرآنك وسود دجيو وحي جيسة منزل كأه إنه إلهي وسود دجيو وبشو إلهي وأدرتي ساس أول إذا وحي لا هي فضائل فربضا يفضل فربضا أي لا هي بركة وحير بان كتابنا إن شاء الله بإذن الله الكريم هالحديث يعني كتابنا وحكى شيرينا لعل الله إلهي إنه أنك أنت أجار ورنبا وإلهي أكو أنفعه يعني إلهي كرجينينا قول كأننا أكو هذا إنه إلهي أكده أكو إخلاص وإلهي درتيسة إنه إلهي أكده وإلهي أنك يكون هو الجاريبة ونبا وإلهي أكو أنفعه لأنه عملك من قرايو مقبول إلهي أكتيسة إلا الله له الله شرط إلا الله له الإخلاص إلهي درتيسة قفك إنه عملك هو سمينا الثاني بالكلمات المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الموافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنه وافق سنه وحي النبي صلوات الله وسلامه عليه والله إماضي أرجو الله العلي القدير إلهي وحكبرينا إنه نقضى عمل كأنه عمل مقبول إنه إلهي ونقضى إنت أوقاري أنك ورنا إلهي ونقضى أنفعه ولا ليال وورينا يا الإمام الترمذي في سننه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا كان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان من شهر رمضان سفدت الشياطين وغلقت سفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم تفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة حديث كاسو عظيم كه أو فضل كاسي وناقة كسو أروري وعلي أبو هريرة رضي الله عنه الله كره ضغطي عبد الحمد الصخري الدوسي نبي وفاي صلى الله عليه وسلم وحوليه جري هدو هبينك أبوه الرياء رمضان waxaa la xirxiraya oo la silsiladaynaya oo la katiinadeynaya
shayaadiinta iyo maradat اljini kuwooda madaxa kuskuusan oo odayaasha u ayaa la xirxiraya. jahannamo iyo naartana waa la xirayaa albaabyaalkeeda, lamana furayo baab oo baababka ka mid naarta ka mid jannadana baabyaalkeeda waa la furayaa, baab oo baabyaheeda ka midana lama xiraayo, way furnaanaysaa. marka waxaa dhawaaqaya mid munaadi baa dhawaaqaya oo malag oo dhahaya dadka u dhawaaqaya dhahayo yaa baaqiya alkhayr, midka khayrka dalbayo oo khayrka rabow, aqbil soo qaabil, yani soo qaabil khayrkii wanaagga soo qaabil. wa yaa baaqiya shari, midka sharka dalbayona aqsir gaabso. wa fii riwaayatin amsik. wuxuu siiyey nebi sala allahu calayhi wasalam walilaahi cutaqaa min annaar, ilaahay wuxuu leeyahay naar dad uu ka horeeyo min annaar, wadalika fi kuli leylatin, wadalika kuli leylati min ramadaan, habeen kasta oo ramadaan ka mid min bidaayadiisa ilaa nihaayadiisi, habeen kasta oo ka mid ilaahay wuxuu ka horeynayaa naarta, wuxuu ka horeynayaa dad oo addoomihiisa ka mid ayuu ka horeynayaa. xadiidka asaga markaan dib aan oogu noqono, wuxuu yihi nabi sala allahu calayh wasalam sufidat shayaaiin, shayaadiintu waa la xirxirayaa oo waa la katiinadaynayaa oo waa la silsiladaynayaa. culimmada xadiidka tawjiihaad iyo tafsiiraad fara badan bay leeyihiin. bimacnaa bacd culamaa waxay ku fasireen yani inay dadka dhibka uu u geysan jiray iyo waxyaalaha uu u tasdiinin jiray macaasida iyo qurunka oo dhan awood uma haayo, oo awood kuma samayn karo, oo saameyn kuma yeelan karo dadka. saas aawadeeda waxuu qaban karo iyo wuxuu samayn karo ma jirto. qaarkoodana xaqiiqada xadiidka ay ku xumbaareen oo inay si toosa loo xirxirayo ayay sheegeen. sida ay ahaato waa min cilmi lgeyb ayuu ka mid u yahay. annagana naxnu nusadiq bidalika, arrinkaa ayakan waan rumaynayna, lianna xadiidka wuxuu ka sugay nabi sala allahu alayh wasalam ayuu ka sugnaaday, wa huwa asaadiq almasduuq, waa min cilmi algeybiyaat. wuxuu nabi sala allahu alayh wasalam wafutixat abwaab ljanna, jannadana waa la furayaa. bimacnaa culimadu waxay ku leeyihiin waxaa lagu furayaa oo lagu sahlayaa abwaabta khayrka iyo hawaabka iyo waxyaalaha aad ku gaari karto magaciisa muxuu ahay jannada. xaqiiqadiisa dii xadiidka lagu xumbaarona waa saliim, macnihiisa waa macno saliim. xadiidka waxaa kalaata oo khasaa'ista kalaata uu leeyahay oo aan ka qaadanayna oo fawaa-ida kalaata ku jirto, waxaa ka mid a yani nabi sala allahu alay slam sufidat shayaaiin, shayaadiinti baa la xirxiraya. wa quliqat abwaabu naar, naartana baabyaalkeeda waa la xiraya. wa futixat abwaab ljanna, jannada baabyaalkeedana waa la furaya. wanaadi munaadiyan, mid baa dhawaaqaya wuxuu leeyaha baaqiya alkhayri aqbil, midka khayrka raadinayow soo qaabil. wa yaa baaqiya shar, midka sharka raadinayana aqsir gaabso. waa midka afaraad. midda shanaad wuxuu leeyahay xadiidka walilaahi cutaqaa min annaar, ilaahay wuxuu ka xoreynayaa naarta addoomihiisa qaar ka mid ayuu ka xoreynayaa, wadalika kuli leylati min ramadaan. markaas saas aawadeeda walaal, aniga adiga oo dhanba iyo nin kasta oo muslim oo dhan ayaan ku dadaalooyey sidaan magaciisa aan uga faa'iidaysan lahayn, siduu alla uu nooga xoreyn lahay. walmaxruuma man xurima, hawaabka magaciisa muxuu ahay iyo xoreyntii cidqi min annaarka laga xoreynayo. ninkii ku guulaysan waayo bishan oo ilaahay u waafajiyey, ninkaas way ninka maxruumkee oo khayrka laga hoojiyey. nas'al allaha subxaanahu wa tacala, ilahay waxaan weydiisanaynaa ani iyo muslimiinta oo dhanba inuu ilaahay magaranaysaa khayrka uu ilaahay u waafajiyo. nabigeenaga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi sidaa ka sugnaatay, saxaabadiisa uu u bishaarayn jiray, uu u tahniidayn jiray, wuxuu dhihi jiray ataakum yani ramadaan, bisha ramadaan ayaa idiin timid, waa bil oo shayaadiinta la xirxiraayo, jannada baabyaalkeeda oo dhanna la furaayo. markaa dadka muslimiinta inay iskugu tahniyeedayaan bishan oo khayrka iskugu kaalmeeyaan waa shay lagama huuraan ah. ilahayna wuxuu leey watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala ismi walcudwaan. khayrka iyo birka in iskugu kaalmeeyo waa shay muhim ah. ilahay waxaan ka rajaynaynaa xanuunkan iyo dhibkan jiro inuu ilahay intuu naga qaado. salaadooyinka inaga jamaacada aan ku tukan jirnay iyo taraawixiideenagii inuu ilaahay magaceysa ilaahay dib uu noogu soo celiyo.
قلب كستانا بإذن الله الكريم وحيالنا يعني هل حديث مثلا حديثات مثلا آيات إن شاء الله يا بروجرام كأنه ويرانا يدونا إن شاء الله أيان سوسي داني دونا قلب كستا رمضان ك أحكامتيس هي فضائشيس واحد قصة أروري وبحر لا ساحلة وفرب ذي حديث قصة أرورتي مركا مالك إن شاء الله بإذن الله الكريم حل حديث يلا بحديث أياك قاضرينا بريتنا أو كلاته وعن كهذا دونا إن شاء الله قيام الليل يا تراويحك فضيك أوليه وناق أوليه يعني كهذا دونا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.